ورياضة كلاماني حساب الله رباية هدي أن حسب شيكتو حقا هذا قرو حروف يستدد كيدو حنتا مامولك جوغا حلك سوهلي مايو warheed xilkaaga iyo xisbiyadaada ma ahane halkaaga ha noo soo dhaafin abwaan daraj waliba horangaray walkii hiliyaw walaal horba aan waaytay weejido ada walaala leekiin waay waraxmadow xukuumadan wali toosin hadii aad ka xanaaqdood xulufaysi bilowdo ee xumaan ka shaqaysa adigaaba xujaa xisbiyaasha idinka sheegoosin horaa loo waxa kaari aryaadaha amba xaggaas u lugeeya amba xaggaas ka lugeeya nin xisaabtamayaan ahoon xumaha moogay war imaaraadkii dawladda Soomaaliya waa heshiiyeen cidii hadda mucaarad bilowda xagee aadi doontaa qaarash laga maarme waxaan aadayaa ورشيسك إماراتك يا صوماليا قضبتي سوحا كمدها الليري إن إماراتك صوماليا تاغيرو اسبتالك شيخ سيد نديب لوفرو ورحمدو إماراتك وركما هيسيدة 20 مليون يوغا قيب غاتين قرمتك عبارها كجرة صوماليا بو والله عكتا شيء اسمه عبد الرحمن عبد الشكور با قيبينيا إنك فداو لك قيبي دونا مسلم بقانديس اللي صاره ورشيرارو وحال ليري هرعونا الدبو معنا إماراتك كومة دهنا ورسل لي ما رجرنا دين شاوالا درقانا كدران دريق نكي ودوال لفتك warheere imaaraad waxaanu ka helnay doorashay nooga baxday arabta hore waliin artay almaa ila almaa aryaamadeeyow eesaamunimaan xadin kama daba maalayse ummadda waxaad ka qabta iska dhiib war cabdullow maada maday amay tahay kenya gudoomiye aadan madoobe lacag ka keenay lambaa hadii la hawaalis may gadaa guruma waan hele haye haddana qurbacow sheegaahe maqal he waxaa la yidhi nin baadi doona ayaa makhaayad tuulo ku taalloo timir lagu miisaya soo galay xilli kalena way ahayd gugiyo curtay ayaa rag makhaayadda fadhiya wax iska weydiinayeen ninka baadidoonkaana baahi culus baa haysayo timirta ninka makhaayadda haystaa miisaya u muuqatay kadibna raggii meesha fadhiyey ayaa yidhi warbal noo warran adiguna meeshaad ka timir roobma ka daay dabadeedna wuxuu ugu jawaabay timiri laba maahee waa tii unkaday oo hilaacday oo xalay xaggaa martay warka boosow somalilan baad ka hadlaysaaye maraa goobna waxaa ka dhacay islaam baadi goob oo xalay soo dib jirtay ayaa subaxii reer shaax karsanaya ku soo baxday markay nabdaysato arigii ka maqnaa ay rabtay inay weydiisato waxay la soo booday maandhayska kirli dab saaran amaad aragteen warnamiyo hata koorlanko hirow oo meeldheernan jeeda yaa widaado haano ambuule kor fadhiiday diyaha ka birimi madaasa meere ambuuladan wal oo si meeldheer an jeeda meeldheerna ku kooyay iyana wali ertay ambuul walka siyay hansharku inshiid hansharkee shiidow nagadi widaadi lanki gob ya kooy haani ambuulada hay usi aaminti hirkii hansharka shiidow markaasa aw hirowkii hansharkii hadhamaay meere haani ambuulada hayti isi markaasa meertay haani ambuulada hayti widaadka aamay aw hirow madokala leyniin kooy aw hirkii ha ku tabi madiha ka tabi reedye hadaleena ma ereena ayna habaarnay haano ambuuleen siino madaasa mayleere aw hirow yaleeri wallaahi billaahi tallaahi inaka dhaarade meere hansharkala ma shiidow warmadeeyow cuqubada xerowgaas laga galay miyaan abaar laga qaadin aryaadaha haddaan ka hor iga herdhalaa habartii waxay tiri waxarahan iga celi wuxuuna arkaya adoogiisay oodka qumbuhuga soo bixi hayso ka kadibna waxarihiyo inya ka soo noqdo kolba iridda soo roogsada waxarihiina inya ka daba yimaadiin ay guriga ku boodboodaan mugaasaa hooyadii ku canaanatay meeqa jooraan ku iri waxarahan iga celi mugaasow yidhi yax ma waxaro oodka cujeedaan celi karaa war cabdillah ma muqmad baad oodka noogu sheegtay aga waragu walagu waxariin moodka ay cunaan hay lama good la wax ma dhaafaan war Soomaali duruufta Allah ka bixiye safarkii maqnaa ma soo laabtay dadka ruux saboolo saranseer ku raagiya gurya samamid yaalo sidka dhalay ku maalo hela seer ma weydiya laba kala sad roomba subax noolba jooge way soo socdaan kowdhe waxna way sidaan labandhe samir yeesha weligiin Soomaaliya ha fududaan warnamiyo anin waliba dheegi jiray Soomaaliya danta garo warwar ma haysan ra'iisul wasaarihi la magacaabay Xamse Cabdi Barre wargoonayn meegadan baa la ansixiyay baa tiri hayehe ma wasiiradiyo magacaabaad dhahdeen gaalkan iska baabtan ka bagdi doontana boo waa degdegaysaane hadduu ra'iisul wasaaraha ansixin rabo muxuu u booqan waayay hooyadii federaalka Puntland warwarka iga qasinina ra'iisul wasaaruhu wuxuu la kulmay madaxweynayaashii hore Sheekh Shariif iyo Farmaajo war madaxweynayaashii hore waa xildhibaanee macoodu ka rabaa ra'iisul wasaaruhu
war xaaladda dalku kala sheekaystay baa la yidhi macal ra'iisul wasaarihii hore waa la kulmay Khayre horaa waxaa loo yidhi ninkii hal haween horta cambuul cun waa kaa weyn yahay war cabdallo maamaada ha ku ciyaarine ninku kaa weyn gubbaas kaa weyn baa la yidhi war isandhong maahmaadka dheeleenna reerkaadiin wiin reerkaadiin yara kurong war kalamaane waxaa la yidhi mutuxnaan dal keligii ma jiro guulma kaabsadae muraad leeska yeeshiyo dan baa lagu macmiilaaye maslaxadu midaba waa mid kale inuu sacmaalshaaye midigyadoo isdhaafay tolnima muuna leedahay war walla weynay waxaan arkayaa magaalada calama la suray rinjiyena lagu buufiyey oo la leeyahay 26 juun baa la xusayaa 26 juunna koonfur talyaani baa haystay xurriyaddii aannu xilligaa hellay iyo hilowgii loo kiinkeenayna meeshii ku dambeeyey waad og tihiin dawladdii markaa la dhisayna waa idinkii kuraastii wada qaatay oo isku koobay garowshiye markaannu idinka weynayna 18 Mey waataan xurriyaddiyeedii la laabannay ilaa haddana namaydaan fasixin ra'iisul wasaarahaannu xaqa u lahaynna hadba waa idinka meel ka tuuraya marka maxaannu ku midownaayo juuntayadan idin daba dhigay wargaboosow haddaadba maanta magaalada soo martay oo aad calamada iyo rinjiyada cusub iyo boorarka soo aragtay soomaali heshiisa dunidana heshiis la'ah oo ku hoos qoran miyaadan soo arkin maxaa kugu dhacay war heshiis afkaa lama rabo ama derbiya ku qorane haddii heshiis la rabo madaxda sare meerta nooga dhiga aryaadhaha samigay cabdullana arrintan wuxuu ka yidhi ow qaado wareegga qof baa toog qaybteeda qaadata qurxon qaado wareegga qof baa toog qaybteeda qaadata qurxon warawowood lagub war ma haysaane shirki golaha wasiirada jubbaland ee khamiislaha ahaa waxaa eegga markii horraysa lagu qabtay dhoobley waxaana shir guddoominayay madaxweynaha jubbaland alsayid axmed madoobe wuxuuna magacaabay degmooyin cusub warqorana qoodhxire kuma heshiisaan la yidhi axmed madoobe iyo xamse barre keebaa joogaya aryaadhaha 20 imaaraadku bixiyeyey idinla weynaanine bangiga adduunku malaayiinow ku deeqaa la yidhi haye baylilin dhiibay war adinku guddiga dhaqaalaha baarlamaanka miyaa tihiin maxaa idin suray lacagaha warkaas waa la kala diraye IMF iyo wasiir beyle waa is og yihiin war soomaali haddaad tihiin dantiinna ma garataan ma deequn baad sugaysaan war waddani baan ahay maxaad u lahayd soodigan markiiba soomaali iska saaray war waddaniga waa la yaqaane uga dambeeya hawsha horaa waxaa loo yidhi nin walbo waddankaaga wax kuu dhaama ma leh war walii kala leeray dhulka qoda hoos u dhaadha'a aynu dhereegne war madeeyo ma shidaalkii baa la soo saaray war shidaal haddaan soo saaranno miyaan deeq sugi lahayn boowe shidaalka see loo soo saarayaa sow kama horrayso inaannu ku heshiinno war somalilan ilaa ictiraaf hesho sidee shidaalka loo soo saarayaa warawowood lagumma khayraadka dhulkeenna ka buuxaan ka baahnaanaynaa waa yahay shidaalkaa sheegaysaan ma ra'iisul wasaare xamsa soo saaraya horta shidaalkii cabdiilay soo saaray xagee ku dambeeyey war soomaaliya heli alkiina heliyo waa leeri lama gacan isdhaaftiyaa la yidhi gacalaa ku jiraa biisac baxaga low dhergaxa aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi ay taabantinta aniga xir taladu noogu toosime ay taabantinta aniga xir taladu noogu toosime